السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام دين داود المال وباجوكتاني سي كستا موقالكا مداوانيسان كسو دوايا عشر كاني تضاد كساب سنة كورس كاني كمبيوترات اكونتينج او كبرينيني سوفت وير كاني بيشتري ان شاء الله ما انت عشر كاني وحاك لنا اللي وجودو لكواد حتى برجيسين فيكسد اسيت اون كاش إن كسو قدنا فيكسد اسيت انا وبحنين كاش وجودنا لبادنا حتى برجيسين فيكسد اسيت اون كريدت إن كسو يفتن فيكسد اسيت دينا كسو يفتن بس انت انا عشر كان قد بين كسو دول المقال كان وورين وحاربين اواتين waxa loo yaqaan fixed asset waxa uu yahay sidii kay muqadimiisa waa asset laakiin fixed asset waxa uu yahay account asset kaas oo shirkadda ay leedahay oo ay u isticmaasho inay ku shaqeysato ma aha macnaheedu fixed asset alaabta inay iibinayso balse waxay u isticmaalaysaa si uu u iibiso alaabteeda tusaale ugu fiican waxay tahay land iyo building company-gan hadii uu leeyahay dhismo okay dhismaha company-ga uu ku shaqeeyaa company-ga wadii uu ku shaqeeyo ma iibiyo company-ga dhismaha laakiin wax buu ku soo saaraa ama wax buu ku dhex iibiyaa sidoo kale waxa kamid ah office equipment xafiiskan qalabku ku shaqeeyo sida miisaska waxaasoo dhan inaa soo gadatay laga baahan yahay man ahan markaa soo gadato man u niyeysanaysid inaad si gadanaysid laakiin waa ku shaqeysanaysaa oo hadhowti marka shirkadda oo lagu kala diraayo ama shirkadda ay faa'iido soo saarayso markaas kadib waa la gadi doonaa laakiin ma hadda in la gadayo waxaa rajaynayaa inaad fahanteen fixed asset wax lagu wado marka hore waxaa soo kacsanaynaa page 3geena page 3 marka uu soo kaco waxaa rabaa inaan soo balance sheet-keena maxaa yeelay waxaa rabaa sidii wax u dhacayaan inaan ogaatiin okay waxaa teginaa balance sheet-keena sidii muuqata dartaa waxaana soo bax balance sheet-keena company-geenu isoo yaqaan Karan Group of Companies okay asset-keen had dartaan waxaa haysanaa cash waxaa haysanaa $20 marka ujeedkeenu ku wuxuu yahay inaan wax ku soo iibsan cash marka qofka caqliga wuxuu fahmayaa hadii aad wax soo iibsato lacagta cash-ka haysato aad wax ku soo iibsato cash-kiina halka yaraanay Soomaa aad jeed waxa rabnaa cash-keena inuu yaraado $20 Soomaan inuu yaraado rabnaa tusaale $10,000 wax ku soo gadan dhul wax ku soo gadan waxa rabnaa inuu yaraado $10,000 waa dhul uu noqdo sidoo kale waxa rabnaa inuu halkaan ku sameysno account loo yaqaan fixed asset oo magac arabta u bixi kartaa hadhowtii ayaan tusi doonaa sida magac loogu bixinayo laakiin waxaa kaliya hadda ujeedkeenu wuxuu yahay in aad ogaatid in cash-keena uu yaraan doono hadda cash-ka waxaa nagu jirto $20,000 nagu jirto okay $10,000 dhul ku soo iibsanaynaa waxaa rabnaa marka account-ka oo waxa dhulka ku soo iibsan inuu fixed asset intuu ka sameysmo cash-keena uu noqdo $10,000 marka balance sheet-kaas ka xirina waxaa teginaa halkay qoran tahay list waxaa ka sii dooran doonaa general journal entry sidana ay u soo kacay kadib waxaa leenahay new marka dhacdo bookska yaraa ku soo muuqan doona halkan waxaa gelinaysaa taariikhda marka wax soo iibsatay sidoo kale meeshan waxaa gelinaysaa reference ama tixraac hadii ay haysato adaarabinne waa iska dhaaf kartaa okay GL account waxaa fureenaa meeshan lista fureenaa hadii uu ku samaysan yahay account fixed asset oo ku fiican tahay laakiin hadii uu ku samaysan yahay account fixed asset hadina soo sameynaa u baahanahay maxaa yeelay ma samaysno okay waxaa leenahay new okay new marka aan halkaan ku soo bixi doonto waxaa la rabaa inaad geliso account ID-giisa waxa rabtaa geli kartaa okay description-ka waxaa gelinaynaa magaca aad gelinaysaa su'aalaha waxaa leenahay company-geena inuu furtay xarun cusub xarunta cusub magaceeda gelinaysaa ama qaybta ama laanta hebel waa leenahay su'aalaha company-geena wuxuu ka furtay degmada Daynil oo kale oo xarun ku furtay waxaa leenahay Daynil branch dhismo cusub oo soo iibsatay company-geena haddii rabto office equipment aad dhigi kartaa haddii rabto dhul aad soo iibsato dhul aad dhigi kartaa marka waxa rabtaa dhigi kartaa sidoo kale waxaan ka dhignaa account type waxaan dooranaynaa fixed asset ayaa ka dooranaynaa okay kadib waxaan leenahay save marka dhaano iska xirayna account inaan soo sameysana ujeedkeena ha waan soo sameysana okay waa xirayna okay hadda inta waxaan ka raadinaynaa Daynil branch ama office equipment waxaa soo sameysana magaciisa inta ka raadinaysa okay waa kana ujeeda account-keena fixed asset waaye Daynil branch ama Daynil building haddii rabto adoo isdhimin meeshan waxaa gelin kartaa ID-giis bis la gelinaysaa asaas dooranayo okay faahfaahinta daarta waa gelin kartaa daarta waa iska dhaaf kartaa anaga tusaale waxaan leenahay waa dhismihii cusbaa oo kale tood halkaas markaa meesha geliso waxaa leeyahay dhibid ayaa leedahay okay account-kan waa account oo asset soo asset waxaa ognahay inuu ku bato dhibid sidoo kale dad uu ku yiraahdo credit marka sida inuu soo galo dhibid ay ku badan jiray marka waxaa leenahay waxaa gelinaynaa lacagta ku soo gadanay tusaale anaga waxaad ka dhiganayaa $10,000
okay GL account labaad waxaa leenahay waxaa kasoo dooranaynaa cash on hand okay lacagtan maadaama aan dhiibano lacag aan dhiibano aan deyn ku lahayn marka waxaa leenahay waxaan soo galay dhismo cusub waxaa bixinay lacag aan bixin okay so account-ka yaraanaya asset-ka ah wuxuu noqon doonaa cash maadaama lacagta ay yaraatay okay waxaa leenahay cash on hand aan doonaynaa cash on hand markaa doon qaybta credit-ka tagaynaa waxaa rabnaa inay noqdaan debit iyo credit inay isku mid noqdaan hadeertan waxaa u jeedaa total debit-keena inuu yahay $10,000 waxaa waajib ah inaad ka dhigto credit-keena $10,000 okay $10,000 markaa gelino waxaa rabnaa balance sheet-keena inay noqdaan cash-keena uu ka yiraahdo $10,000 okay cash-keena waxaa rabnaa inuu ka yiraahdo $10,000 sidoo kale dhismo cusub inuu soo galo account cusub oo fixed asset inuu soo galo rabnaa waxaa leenahay kadib save aa leenahay save markaa raano waa iska cancel gareenaynaa waxaa tegaynaa balance sheet-keena saa oragna waxaan sida u dhaceen waxaa tegaynaa reports and forms kadib waxaa kasii dooran doontaa financial statements kadib waxaa kasii dooran doonaa balance sheet-keena kadib waxaa dhihi doontaa okay sida idiin muuqata dadkan cash-keena $10,000 noqday haddaad meeqaa ku jirtay cash-keena $20,000 sidaas darteed wuxuu ku leeyahay $10,000 wax kusoo gadad okay $10,000 way kaa go'day hadda waxaan ugu jirta lacag dhan $10,000 okay hoos imaw account waxaa samaysanay fixed asset oo loo yaqaano daily branch billing $10,000 qiimihiis ah halkaasi waxaa ku ujeedkeena koowaad ee casharka oo ah inaan wax kusoo iibsano fixed asset aan kusoo iibsano lacag aan kusoo iibsano ujeedkeena labaad ee casharka wuxuu yahay inaan soo iibsano fixed asset aan kusoo iibsano diin aan kusoo iibsano hadeertan cash waxaan u yeelaa laba account oo cash aan u tash meeshan mid waxaa ku jirta $10,000 mid waxaa ku jirta $8,000 waxaa rabnaa marka wax diin kusoo iibsatid cash ma bixinin cash-ka inuu siis ahaan rabnaa sidoo kale diin hadeertan waxaana lagu leeyahay $71,600 waxaa rabnaa diintiin inaan korro diintiin lagu leeyahay inay kororto sidoo kale account fixed asset inuu imaado oo asset-keena uu bato diintiinan ay badato okay waxaa tegaynaa halkii hadda ka imaanay ee general journal entry anagoo ka tegayno list kadib soo dooran doona general journal entries kadib new aa kasii dooran doonaa new markaa kasii dooran halkan waxaa gelinaysaa taariikhda wax soo gadat okay inta u imaanaysaa waxaa gelinaysaa account-ka fixed asset-ka ah ee aad soo iibsanaysid okay tusaalaha anaga waxaa iska leenahay account cusub waa soo samaysanayna oo fixed asset ah anagoo taabanayno new kadib waxaa leenahay account ID-giisa waxaa rabtaa isgelin karnaa tusaalaha $35 oo dheh description waxaa dhehnaa account-kan wixiis magaciis okay waxaa dhehnaa qalab xafiiseed tusaalahaan ingiriisi waan qoran kartaa Soomaali waan qoran kartaa okay account type-ka ku soo har account type-kan waxaa gelinaynaa fixed asset okay kadib waxaa leenahay save markaa raano iska close gareynaynaa sida ognahay fixed asset-ka haddii uu kusoo galo wuu dhibidoo noqonaya okay account-ka credit noqonaya wuxuu noqon doonaa account payable ama deynta adiga lagu leeyahay halkan waxaa naga soo doortaa office equipment okay haddii kale dad ID-giisa la geli hadaa taqaano ama inta taabo kadib waxaa soo doorataa office equipment ama qalab xafiiseed ID-giisa waa 35 markaa dhaad halkan faahfaahinaa gelinaysa haddaa rabto haddaa kalena waa iska dhaafi kartaa dibid ayaa leenaha tusaalahaan waxaa kusoo gadana $10,000 sidoo kale dad account-ka badan doono oo diinta lagu leeyahay halkan gelinaysaa account payable haddii ingiriisiga kugu qoran tahay haddii ay Soomaali kugu qoran tahay waxaa dhehaysaa wix kugu qoran aniga hadeerta waxaa nagu qoran diintana lagu leeyahay ID-giisa muxuu yahay 4 okay waxaa gelinaynaa credit oo ah $10,000 waxaa la rabaa dibid waxaa geliso iyo waxaa credit geliso inay isku mid noqdaan okay hadeertaan balance waa 0 waxaa leenahay save haddaan dhahno waxaa rabnaa diinta noogu lahay oo $21,600 ahayd inay noqoto $81,600 sidoo kale waxaa rabnaa account cusub inuu sameysmo oo loo yaqaano office equipment ama qalab xafiiseed kaas oo ay ku jirto lacag gaarayso $10,000 okay waxaa aragnaa marka save aa leenahay save markaa dhahno waa iska xiraynaa close iska leenahay waxaa tegaynaa reports and forms kadib financial statements kadib waxaan kasii dooran doonaa balance sheet kadib waxaa dhihi doonaa okay sidaan aan soo bixi doonto okay cash-keena xabad isla saameyn oo ujeedaa cash $10,000 nagu jirto $10,000 nagu jirto ilaa cash ma dhiibin okay soo kale tood salaam bankin waxaa nagu jirto $8,000 daatan waxaa nagu jirto $8,000 okay macaamiishan waxaa ku leeyahay $100,000 lacag dhan ama macaamiishan ku leeyahay okay dhiman halkan u imaw waxaa sameysmay account fixed asset oo loo yaqaano qalab xafiiseed kaas oo nagu jirto $10,000 okay qaybta asset-ka waa aragnay account ay ka saameysay sidoo kale qaybta liability ku tagasnay
liability waxa uu jeedaa inuu noof sameysmay diinta lagu leeyahay isjitni kookun 600 inaad hadda waxaan ku lahaa 7,600 haddeertaan waxaa soo diinsan 10,000 oo qalab xafiisyada soo diinsan sidaas daraadeed waxaan lagu leeyahay 8,600 dollar sidoo kale total asset-ka way saameynaysaa okay maadaama asset-ku batay liability and equity inuu batal rabaa liability and equity-gana siis waaye ma saameyn doono waxaan rajeynayaa inaad fahamtay cashirkeena aadka u xisaab badan waxaa sidoo kale ku rajeynayaa inaad isku day doonto kadibna aad sameyn doonto waa dibaas la xasan oo idin leh adoo dhaxal reebi kara hanaqon dhinta aad la timin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh